بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارة قيمها قدرين حشمة مدن ميل كستو جوجتان يا هول كستو هيسان بو واحد الله نهي كسو دوادا برنامجka arrimaha qoyska iyo haweenka oo aad ka daawataan telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliya. barnaamijka maadaama uu qoys yahay oo ku jiro haweena uu yahay bal dhinacii qoyska ayaan daawadayaal maanta ka eegi doonaa. waxaan qoyskooda ku soo booqanay lamaane laba awlaad haysta oo nooga warami doono waaye fara badan iyo caqabado fara badan oo la soo kulmeen waqtigii ay nolosha ku midoobayeen. lamaanahan oo laba ciyaalo yar yar hadda haysta bal haddaba waxa la isweydiinayaa oo la midoobi jiray maxay kaga duwan dadka kale. waxay kaga duwan lamaanahani lamaane tahriib ku kulmay bay yahay. haddaba mawduuca barnaamijka ayaa waxa uu yahay socdaalkii tahriibka iyo dhibaatadii badnayd iyo waayihii ay la kulmeen qoyska noloshan ku midoobay iyagoo ku jira tahriib waqtigaas. bal horta waxaan wareysan doonaa marka hore wiilkan wareysan doonaa oo labada qofba way wada joogaan hadda waa Maxamed Saciid Ibraahim iyo Xamda Maxamed Maxamuud. balse Xamdan waan dambaysiin doonaa wiilka ayaa waxa aan ka wareysan doonaa waayihii tahriibka iyo bal dhibaatadii hore markii hore uu maray kadibna qoyskan guda gali doonaa iyo sidii ay ku kulmeen haddii Ilaahay idmo. Maxamed saad arkaysaan waa wiil dhalinyaro oo da'yar sidoo kalena Xamda waxaad arki doontaa iyada laftirkeedu waa qof dhalinyaro oo da'yar. bal marka ugu horeysa Maxamed waxaan weydiin doonaa maxaa kugu kalifay marka hore inaad tahriibto maxaa aad ku jeclaysatay inaad bal jidka iyo dhibaatada iyo qodxaha iyo dhulka la marayo aad martood naftaada u biimayso. soo dhaw Maxamed bal waxaad warbixin naga siisaa waxyaabihii kugu kalifay marka dambena bal waayihii aad kala kulantay tahriibkaadna siin doontaa. waan salaamay asxaabta dhammaan meel walba joogtaan. anigoo Maxamed Saciid Ibraahim waxaan maanta halkan soo fadhiistay inaan rafaadkii aan ka soo maray dalka Liibiya ayaan u taariibay rafaadkii aan ka soo arkay inaan la wadaago ummadda nimanka taariibta ku cusub ee doonaysa inay dib u taariibaan. horta taariibtu adigu naftaada qof naftiisa ku khamaarayo kale waa tahay haatide adigu damba shal iyo shul amba dhimashay noqonaysa inaad dhimato amba inaad noolaato laakiin waalidka maxaa u dambeynaya hooyada iyo aabaha markaad adigu iska tagto naftaadii aad khamaar ahaan aad u isticmaasho hooyada iyo aabaha siiba hooyo ma saaxanayso intaad ka maqantay haddaad dhimatana weligeed ku ilaawi mayso haddaad xataa guulaysato wadamadaada u socoto tagto hooyo intaad ka maqantay saaxan mayso urdu raaxle marka insha Allah waan kala faa'iideysan doonaa. taariibta markii hore anigu kolay iska dhalinyaraan ahaa markaan taariibadaada nimika ahay aad baan uga sii yaraa anigoo ka filan waxba ka fiirsan baan iska taariibay dhowr nin oo dhalinyaraaba yimiday waxay ku yiraahdeen inaan taariibnaan rabnaa حتى تعريبت بين على عمره ما كرني وقت جاس أو سفي عن ما كرنين بدن الله نحرسته ولا بدن الشيء جيو أو إن كودنت بدأ ليبيا الله نحرسته كودنت ومروان يو عبد الرحمن كان كل شيء يعني وعيال إنما يقولون الرئ بورما الله نحرسته مركها إنما ده مركي يمتني إنما كلام بدن يا يوم تعريب إنني يوم حد كلا ذي الصحن وأنا هاي مركها waxaan ku niyo taariib halkee waxay guulaadeen halkaas marna dirraba la tagayaa nolol maalmeedkaaga waxaad u baahato dhan waxa qabaya magafa kadib marka Liibiya tagtana lacag yar wax xogaabaad bixinaysaa kadibna waad ka sii gudbaysaa waxaad tagaysaa Talyaaniga wadamada marka lagu kala sheegaya marka xamaasadda lagu gelinayo lagu fududeeyo wax yar oo fudud baa laga dhigaya Australia Sweden Jarmalka waddanka jeceshay baad tagaysaa tareen baad u raacaysaa wax yar oo fudud baa laga dhigayaa markaad ka baxaysaa halkan marka magafaash markay raabka ku saarayaan wax ku weydiinayaan wax ku sheegayaan waxay kaaga dhigayaan wax laba cisho aad ku tagi karto si yar oo fududna aad ku gali karto lacagta ay ku weydiinayaan iyo gudkaad ku dhacaysay waxa soo dhan lagaga warrami maayo laakiin si aad u socoto ku dhex dhacay baad sarkaysaa naar holaacaysaa marka Ilaahay anaga badbaadiyo asxaabteena iyo ummadda Soomaaliyeed Allah ka badbaadiyo anigu markay gu yiraahdaan asxaabteedu waan taariibinaa ayaan ku ilma taariib ma saas ahaa ina marsha si baan isku raacnaa asxaabteedii marka waxaan ka baxnay Djibouti waxaan soo marnay halka gaari waan soo raacnay waxaan imanay dirraba meel baan ugu soo dhaweynay waxaan la wareegay nimanka magafeyaasha wayna kaxeeyeen
kadibna waxayna geeyeen Addis Ababa muddo dhan baan iska joognay adigu ku dhawaad dhowr iyo 20 cisho kadibna halkaa way naga sii saareen waxayna geeyeen meel Gondar la yiraahdo xuduudka malaha Itoobiya Suudaan u dhaxaysa halkii markaan tagnay ay noo bilaabeen tarfaadka dhan ee la leeyahay taariifta adigu Itoobiya dhex joogay ku bilaamaysa adigu waxaad ka sheekeynaysaa Liibiya iyo sheekadil iyo dhimasho markaan Gondar saa u tagnay waxa noo bilaabantay in loogu xareeyo guriga xagga sarena caws laga sameeyo xagga hoosena ciid iyo dhoobo iyo wax la oo tuqaantu ka buuxdo tuqaantii garanaysa habeenkii ka seexanay habeenkii waan seexan weynay si noo cunaysay sidii ku soo jeednay saddexdii habeenimo markay tahay meeshan laga lugaysiiyay roob baada iyo biyaha soo qulqulay dhooqadu waa carmadu way ahayd ilaa lugtila jilibkay ku galaysay habliyeena ma baan ahayn waxaan soconaba kabiiba naga googo'ay meeshu qodaxiyo fara badan bay leedahay roobna uu daayo wala dhoobo qodaxyada iska ilaalin karaysid kabii markay googo'een qaarna way tuureen qaarna uu kabii isku yar xidhan kadib waxa lugeynaba hablii qaar kamid ah cagaa intii biyo ka galeen bay dhaqaaqi kari waayeen qaaran dhabar ku qaadnay qaaran gacanta qabanay intaba dad waan sacaawinay inta sii soconay kadib rafaadka ugu weyn Suudaan dhexdeeda inta Liibiya la gaarin ka Liibiya horta isagu anigu kama sheekeyn karaya tan ka taaban karayna waa taabanaya kadib Suudaan waxa lagu saarayaa cagafta beeraha lagu qodo waxa lagu saarayaa daawayaasha qoda ciida xagga dambe ku yaala ayaa qofka bini'aadanka salka loo saaraya say baashu cararaysa dhulkuna waa dhooqo waana dhagaxaan waa buuraley say dul cararaysa tasaa ku qadad ku soo dul noqonaysa daawihii baasha cagafta inuu surwaalkaaga jeexmiyanba waxbaad noqon waad ka duuli inta lagu joojiyo lagu soo saaray wax dan iyo hela laga leeyahay ma jirto xawayaan mise bini'aadan waxa tahay adigaaba isla yaabay soo dhinto maxay haystaan kadib taas anagoo la yaabanadu si ay noo wadeen kolba cagaftan waan fulnaa maxaa arrin kala ahaynaa oo qasban lagu wataa qoryaal ah kaaba lagu dhinac maray mar hadaa Suudaan dhaafto xadka Itoobiya mar hadaa dhaafto xuriyad ma lihid inna soo meegi kartid wixii lagu yiraahdo fulinaysa bis seexda waa socda fariista waa inta adoo waa la kala dhacaa marka dadka waa la kala dhacayo qoryaal lagu kala qaataa intay hub isku qaataan bay dadka kala dhacaan ay qaar kale ka siibiyaan marka dadkaas iska ilaalinayaan in la buuqo iyo in la hadlo midna lama ogola badda waa kugu dhaco amba dakhrantiin ba dhagaxa kugu dhaco ma hadlaysid dhiigaaga iska masaxayan badigaas xidhaya aday ku taala adoo 30 qof kula tahay gaari cagafa oo intuu yahay aad aragtay saddex taayir waa muhiim weeyaan meel kale la fulo ma leh 30 qof oo cagafta la saaray rafaadka la kulmay maxaad u malayn kartaa adigaaga daawanaya marka taasana la saaray kadib waxayna wadaba cagaf inagu sii wareejinaysay waxayna geeyeen meel aduu Khartoum u dhow caasimadda Suudaan marka xaggaan geeyeen waxa jira gawaari waaweyn iyagu loo yaqaanaan oo kuweenan andamilahay ariga lagu qaado ayaa la keenaa meesha maxaa isku imanaya meesha ay ajaanib dhinaca ka imanaya ayaa isku imanaya xabashi haday noqoto Eritrean haday noqoto Suudaan haday noqoto Nigeria aduu walbo taariikhaya meesha la isku wada keenaya kadib andamilahay ariga lagu tala galay baa la saaraya ilaa 200 oo qof afkaas laga dhigaya mid meel ka neefsadaan bay waayayaan wadagto gaarigu korna uu dheeriyahay aad bu korna uu dheeriyay gaarigu markuu buuxdo ma neefsan karaysid waana saxara la marayaayo ciidan inta la soo dhaweeyo waxaad moodaa in dhakadaada la keenay ciidu way kulushay aad bay kululaatay markay qorraxdu qabato oo waa ciid iska bataaxa maaha ciid waa saxare kuleelkiyo saa kugu dhigayo meel aad ka neefsanto aad weydo oo intaasoo 200 oo qof ay saaran yihiin gaari yar oo ciriiriya haddana biyo leysisiinayn aad cunto helayn inta saacadood amba daal amba hadaalin amba dhimo adigu waxba iyaga kama gelin waxay istaagayaan hal waqti oo kaliya hal waqtigaas ay doonayaan iyagu inay wax karsadaan neef yaa gaarigu saaran neefkaas la soo degay way qalanayaan way cunayaan kulli haddaan been sheegay saxaabtiidu way daawanayaan kuwii aan wada soconay iyo kuwa imika Yurubta jooga iyo kuwa dalka ku soo noqday kuwa imika Liibiya jooga dhammaan kulli way la socdaan barnaamijkooda waa la hada maray cidaan ugu ma jirto hadii aad walaalka u bandhigay in anigu soo bandhigay dhibaatadii la kulmay runtan waan u sheegay marka meeshii qaar baa ku dhax suuxaya kadib way gaariga joojinayaan cuntadooda iska karsanayaan halkaas iska cunayaan hadaa talaabo yar soo qaadiyo cunto cunayo in xabad beerka ka galiyaan wax lama
noqob marka kaliya intii dadkan waxaan wataa cuntadoodii cunaya oo idinkeedii wataa isaga dib dadkan horta lacag baa loo soo gelinayaa oo bini'aadankan uu wato isagu uu marka iibsaday idinkeedii ma ogola inaad u timaadaan anagu ma ogola inaan wax la cunno ma ogola waxa gaariga waxa saaran dhowr mooysaxada yar gaariga sharaabkaa saaran ama biyaha saaran ama dhowr kaamira buskudka saaran amar la'aan kuma qaadan kartid dad ku qaadato ay ku dhamaatay waa in iyagu ku qaybiyaan 24 saacaba hal mar ay xabad buskuda iyo xabad maanga iyo xabad biyo ku siinaya waa habeenkii iyo maalintii 24 saacadood waa 12 saacadood maanta dhan baa soconaysaan caawa ayaa lagu siinaa caawa kale caawa ma lagu siiyay habeen dambe xilligaas oo kale ayaad helaysaa wadana intaan lagu siinaya subxaanallah waxa ku bilaamaysa dacar iyo maangada oo taqaanaad oo gaajoonayo oo kuleel sida dhulku kulul yahay maango kululaatay maanta dhan gaari saarneed cabto aad macaan waxaan ahayn inaad helayn cunto kale odogtay dacar baa ku sii bilaamaysa oo saxariiba ka bixin kadib waxaan socono gaarigaas waa gaariga Suudaan naga qaaday aan ka sheekeynayo wuxuuna keenay saxaraha Liibiya bartamihiisii anagoo marano gaarigu shidaalkii oo naga goostay saahidii iyo shidaalkiiba biyo la'aan iyo shidaal la'aan waxa meesha saaran hal foosto ay iyagu iskugu talagaleen inay cuntana ku karsadaan nimanka gaariga noogu wado inay cuntana ku karsadaan iskagana meedhaan gaarigana ka biyeystaan yaa halka foosta saarneed gaariga halkii foosto saaran bay dadka iyagu anagu u dhimanayeen haraad darteed kulay qof Soomaaliya meesha ku dhintay kuma jirin dhowr litriyaan ilaa 3 litriyaan ku dhimatay waxaan meesha joognay muddo 4 cishaa bilaa cunto bilaa biyo bilaa waxba meeshu waa saxare inta habeenkii uu gabalku markuu dhaco ay ciid yar qabowayso soo yar gami kartaa oo yar jiibsanaysa mar haddii ciidu soo baxdo meelaad ku jiibsato ma helaysid hal geedo harsato ma laha gaariga hadaad istiraado hoos gal waxaas intaasoo kun oo qof ku hoos jirta oo meelaad hoos gasho ma leh mid kale elektriyaanku waxay wataa caruur yar iyo dumar xamiloon iyo waxba la socday dadku waxay ku wulfisay dadkaasina u deeysido aad bacaad ka fariisatay marka dabada ma saari kartid waa ciida kulul ciid waa la soo dhaweynaa dhakada laga saaraya 4 biriyan nooca ku jirnay 4 cisho markay noo dhamaatay kadib ayaa gaari baa Suudaan looga soo dabadiray wuxuu soo soconaya dhowr cisho inta soo soconin leeg buu soo soconaya kadib halkii uu nagu yimid wuxuu keenay shidaalkii naga go'ay iyo imrosaaya intii hore ugu sii soconay ma Liibiyana meesha laga wareegay marka Suudaantu way noqonayaan Liibiyan baa kula wareegaya marka Liibiyan cadaan marka Liibiya ku dhawaateen waan galnay oo saxari Liibiyan ku dhex jirnaa xuduudkii waan soo dhaafnay in badan way isku wareejiyeen marka iyaga isku wareejinayaan marka Liibiyan kuna waxay wataan xaajiyada yar bay wataan kuwa kale waxay wataan gaari waaweyn Soomaa andamil wataan kuwana waxay wataan xaajiyada wataan xaajiyada waxa la sameeyaa 200 ee qof ee meesha saaran من 60 qof baa loo saaraya 60 wixii ka soo hadhana gaari kala la saaraya ilaa 80 qof ka soo hadhayso gaari kala la saaraya 80 ka qof waa gaari xaajiyado yar oo dabada sintu leegi waad aragtay 80 soo dul fariisanaya waa la soo dul fariisanaya isma dhaqan waa la raseynaya sidii alaabta marka la raseynayo kale yaa dadka loo raseynaya adiga dhan baa saa lagu fariisinaya mid ka halka la soo fariisinaya ka kala lagu sii xijinaya hadaa dhaqaaqdo halkaas laga tooganaya lagu leeyahay ma dhaqaaqaysaa adoo rafaasano ooyaya yaad baxaysaa meeshan loogu wadana waxay noo jirtaa waxaan u sii soconaynaa 7 cisho dambe ayaan u sii socon doonaa bas 8 cisho dambe u sii socon doonaa laan kasta xasuusan maalinta intaas sii soconay kadib kuwani biyo ma sitaan biyo uma saarna gaariga ay ugu tala galeen taariibta inta uma saarna waxba uma saarna kuwii kala la qaato ma gooyir iyo waxna siinay intana cunto la'aan iyo biyo la'aan gaariga saan u saarnay kadib wax la cabaa la waayay wala isku soo jeesto caagad baa la soo qabto xaliliyo waa ku kaasha cidii kaadi hayso maalin maanta oo dhan haraasanaa gaajisnaa kaadi ka imanaysa kaadi lama helay marka hal qof oo dirqiis kaga keento in yaro kaadi dhibiciya ay iska keenaya wallahi waa xasuustaa bas hadal qaadiya kulay inta qof ay cabta xataa waa cabeen baa la sheegay way cabeen waan kala boobnay kaadida dhan soo kaadi ma wax kaadidi baa dib loo sii kala boobayba arka bashiir subhanallah marka waxa kaadidii markaan cabnay kadib aad u yaro xoogaa markaan soconeedo 2 cisho amala yana la geemel saxra oo biyana iyo allaana oo qasabada socdaan oo meel caadi oo lagu tala galay macallin rakaabka ugu soo dhaweeyo dad walba cusub halkaas la soo mariyo meel ku far leedaado talaalkii markaan la keenay oo lagu rusheynay horta tumbada la soo qaadaya biyo lagu rusheynay
ma lagu rusheeyo ma lagu wada qoyey kadib baa biyo lagu siinayaa wada cabaysaa dadka qaar intii biyo cabeen beerka biyuhu kaga dhaceen halkaa ku sooxeen anigaygaas wallaahi saan aha ma garanay biyaha markaan cabinta beerka kaga dhaceen baa khalkhalay waan dhammadoobaday meeshii baan fadhiistay saadaan meeshii u fadhiistay saf baan la geliyo meel kalena loo wadaa annada waqaad baan la dhaqaaqi kari waayo waan fadhiistay wallaahi BBR waa xasuustaa saaxiibkay xidiin maanta dib daawanay intuu soo qaaday BBR buu halkaa igaga dhiftay BBR marka waa maxay BBR waxa weeyaan ma aragtid tumbooyinkan caagaaye biyuhu dhaxmara kuwa nuucooga adagtee ayuu kugu dhigay ayuu sida geelay igu kala waray wad kacday adoo doos waan kacay mise cirkaan u booday marka meeshii bay noogu xareeyeen meeshii markay noogu xareeyeen aduu habeennimadkii bay cunto yar noo keeneen cunto markay noo keeneen aan cabaar joogno waxaa bilaabantay lacagii la isweydiiyo meeshii waa meeshii la iskugu soo dhaweynayay isma lahayn badii lacag baan liigu weydiinayaa ninkani markaa waa ninka saxraa dadka looga keenay waa intuu halka wax kaaga qaato dib ku siibinaya ma oga nimanka kale isaga shuraakada la ah inuu anaga lacag naga qaatay in kale isagu ma oga waa lacag wuxuu leeyahay nimanka way cusub yihiin intuu lacag kale naga qaato rabaa inuu dhaado nimanka way cusub yihiin lacagtana inooga qaad isaguna ugu wareejiyay markaa ayuu rabay sana meeshii baan la keenay meeshii markaan la keenay $6,000 baartan la weydiiyay $6,000 dhowr cishorta waan u aamusay oo u jaakanay waxaan idin meeshii saxraha ma kafana ma aha dadka la nagama soo horreeyno ma aan aragay lacag lama baxna jooga marka mid fataal oo raaxmar aan la socdo yaa soo haday wuxuu joogaa imka Talyaaniga filaya ninkii baa ili Carabiga uu yaqaano meesha hore u maray aan siriyo uu garanay ninkii baa nabasaaso ili saasi leeyni mako intii loo yimid baa leeyahay container ka garanaysaa container banaanka yaala oo adeeduna ku dhacay sidee wax walba ku dhacayaan oo qama oo meel laga bax lahayn ayaa shan qofna loogu xareynay kaadi u baxaysid xaaje kale u baxaysid halkaas ku jirta container kuna kuleelka wadiyaabaysa meel uu ka neefsadana male ma qaska ku qabo war waan bixinaa naga yeedhay meeshii waan laga soo saaray halkii lagu bixinay lacagtan lagu soo celiyay xaafadiina garaacdo waa leeyahay waa la garaacay cidii loo soo diri karayna waa loo soo diray anaga iyagii baan la sii kala qaybiyay cidii lacagta la baxday way baxeen oo safar kala loo diray intii aanan bixin halkii bay ku hareen halkii si waxaan u joogno oo dhacsanaanaba qaarna lacag bay bixin alay kul hal qaarna way bixin meeshii baan laga qaado meel kale la geeyay meeshana waxa haysta nin gaal oo Eritrean John Baleer Allah xasuusta gaal baa haysto Eritrean wada la ilaaha illa Allah tiraado si dhimanaya ayuu ka oranayaa anigu ilaahay waa lacag buu ka oranay astaghfirullah wuxuu ka oranayaa maana la ilaaha illa Allah ilaahay uu kugu dilay hadaad saadato adoo naftu kaasi baxaysaada waxa la isku garaacaya inaba caadi ahayn hadaad khalad yar sameeyso dibadda lagu saarayaa عادة lagu saaraya waxa la sameeynaya milix baa la qooshay biyo lagu qooshay milixda ma la qooshay qofkii basharka ah baa loo jiifinaya waa la qaawinaya milixda dhabarka loo marinaya milixda ma loo mariyo dhabarka labada gacmoodna sidii bilaal wala bilaal cid waliba way daawatay si bilaal baa ninkii qofka halka dhowr jaajuur baa laga saaray halka dhowr jaajuur dhabarka 6 jaajuur ama 8 jaajuur qof intuu qaadi karay ayaa laga saaraya milixda cid markay ku dhacdo qofka bilaadanka milixdu jirka aad bay u cuntaa dhabarku ku cunaya ismada xoqi karisoo gacmahaaga lagu ay intuu xidhan adigu waxa lagu deynaa ilaa intuu gabalku ka dhacayo gabalku ma dhacay oo dhaxamu u bilaameen marka waa ragga u baxal ku sameeyay ragga hablaha de waxyaabo ka si daran iyaga waa lagu sameeyaa laakiin raggan ka hadlaya kadib markuu gabalku dhaco liibiyadana cid garanaysa dhaxmo badan bay leedahay oo barfaad aad bay u dhaxmo badantay waxa lagu xirayaa darbiga calaasada lagu xirayaa caawa dhan bay dhaxantaas ugu dhacaysa adoo gaajoonayay oo maanta dhan dhagax ku saarnaayo cunto lagu siinin ee caawa dhan dhaxantaas ugu dhacaysa dadka qaarna bartaa way ku qallalaan oo way dhintaan oo laga soo furaayo oo meelahaas ku soo tuuraan de nafti Ilaahay baa hayay ka aanan dhimanna waa la soo qaadayaa oo cadceed la dhigayaa cadceed qofkii caaga noqday qalalay dhaxantu qalajisay cadceed wadana kala furfuraysa markay kala furfurtaa la xareynayaa gudaha lagu xareynayaa anteeri waxba la siinayaa marka la isleeyahay qofkaas soo marka lacagta laga rabo marka la isleeyahay qofkaasi uu soo roonaaday waxa hadana waa la dhalaalinaya labadaas baa laga dhalaalin inta la shido jilibka adu cadaab waxa ma dhaanto taas marka
anigu intaan maray baan ka sheekeynayaa laakiin dad iga daran oo anigu arkay baa jiro aad iyo aad aniga iga daran oo aniga Black House meel la yiraahdo la geliyay Black House meel la yiraahdo la geliyay aqalka madow waxay u yaqaanaan carabtu Baytul Aswad Baytul Aswad meel la yiraahdo lagu riday Baytul Aswad wax weeyaan dhulka la qodayaa dhulka hoosteeda ma la qodo dhulkii ma la dhameystiray waxa la saaraya xabad dhowr milo jingada iyo dhakada laga saaraya ilbaab baa loo sameeyaa xagga hoosaha marka xagga aad ku jiraysaa jingaduna waxay ku jirtaa ma istaagi karaysid waxay ku jirtaa in yar oo xoogaa inta yarna ay ku jirtaa aad kor ma istaagi karaysid suuli ma laha agtaada waad fadhiisanaysaa 24 saac hal mar baa lagu keenayaa makaroona lagu sameeyo biyo milix oo kaliya taasoo la kala boobayo dad midho kugu soo hagaagto aad cashaysaa habeenka weeyaan وانا 24 ساعه marka way weyntahay meesha lagu weynay meeshu may weyntahay adigu inta imkaan fadhino ka yar dheertay xitaa ka weynta guriga okay ba waxaad warbixiniga siisaa rafaadka aad soo martay iyo dhibaatada markaan ka tagno markii meeshaasi aad gaadhay adiga iyo xaajiyadaada Xamda seed ku kulanteen horta niya xaajiyadeedu meeshaan kaaga sheekanay Black House la yiraahdo markaan muddo ku jiray yaa la iga saaray wax la wareejiyay hangar la yiraahdo hangar mudaaficiin oo dadka lacagta la baxay ka dhigantay yaa la wareejiyay marka halkii la wareejiyay anigu marka lacag la iga ma hayn kadib meesha ka dhax shaqay bay guuraadeen oo adoo beeray waxba leeyihiin liin iyo waxoo tufaax iyo waxba beertaan oo beeray leeyihiin beerahaas kala shaqeyn jiray sahagar la'aan aan ula shaqeyn jiray marna waxaad beeraha baad waraabinaysaa marna qasabadaad xelaysaa marna dhirta baxday baad jarjaraysaa waad habeenaysaa marna waxaad ka soo guraysaa midhihii la iibinayay baad ka soo guraysaa sidii meeshu leeday adoo meeshii baan ka shaqeynay idagii baan la shaqeynay hangar kuma shaqaale gooniyo buu leeyahay oo ka shaqeeyo aniguna beerta baan kala shaqeyn jiray waxaan isfahanay odayga meesha iska haystay meesha iskale yaan isfahanay muddo markaan joogay meeshii aan macal safarkii diideen inaan safro xataa aan iska dhacsanaa iyo waxa dhacday gabadhan waxa la keenay rakaab cusub ay gabadhan ku jirto xaajiyada xaaskay ku jirto oo 30 inamood iyo iyada ahaayeen meeshaan lagu keenay markaan lagu keenay marka hablaha waddo iska dandansan oo ogtay qofkan waa qof dumara ku walba arko alla way qurux badan tahay marka wadda cid ka hor taagan ma jirto xoogga isaga leh meesha isaga leh wada si walba ku farxumeyn kara haday xoog noqoto iyo haday inta bada sinada kaga badbaadi karto dad isku quflo kadib inantiyo dhowr qof u tashanayaan baan arkay macal kameesh iska lamid walaalkiya iyo kuwa Suudaano meesha may Soomaali ma Soomaalidu iyagii baa dhibaataysan meesha kula jiraan qof Soomaali oo badanka lama shaqaaleysiyo dil la shaqaaleysiino kuwan saraajaminta magafa iyo wax noqdo marka dambena la dilo weeyaan laakiin shaqada caadiga ah guud waxa qabtay nimanka Suudaaninta la yiraahdo af Carabiga ku hadla yaa badanka meesha ka shaqeeya iyo Eritrean baa jooga meesha iyaguna ka shaqeeya kadib gabadhi baan ka hor istaagay waxaan ku yiri gabadha uma dhawaan kartaan adoo muddo isku qabsanay oo isku haysanay in badan baan isku haysanay kadib si allaalihiisaan kaga badbaadiyay markaan waayay baan ilaan afkaan ma garanayeen gabadhan intaas hoosaan oo la hadlay waan ku yiri waaba xaaskaygii gabadhan xaaskaygii baa way dhibeen marka ku wareegayeen way ku wareegayeen way dhibeen inay farxumeeyaan bay doonayaan inay farxumeeyaan bay rabaan iyaduna way baqanaysaa oo aad daaniga bay igu soo weeysaa mar walba alla wala garanaysa baarkiisi goynaysa kadib waxa dhacday ana waxaan idhi markaad iga dul talaabsataan baad gabadha farxumeyn kartaan laakiin tan joogo ma farxumeyn kartaan tiina maalin walba iga tagay markay soo sakhramaan beedna soo noqonayaan kuwiiba ma inaan dib wax u faansiiyay doonayaan hadana waxay si ahaato markii dambe waxaan idhi gabadhan waa xaaskaygii oo aniga ka soo horeeyay kadib nimankan aniga iyo daba timid waa xaaskaygii la socdo isma taqaanaan waliba marka hore ismeedaan dhaaro iyo wax bay guulaadeen adigu waan u dhaartay badbaadinaysid de wallahi baan idhi waa xaaskaygii astaghfirullah damiyala adigu meelay badbaadinaysid marka adigu odaygii meesha lahaaba markii joogay xaaskaygii waa maxad igu sheegay mar hore waan ka soo saari lahaa meesha meel caadi baan keenay maxad igu sheegay wax bay guuri waxaan ku yiri mikooniga ku sheegay wax xaaskayga iga soo saar meesha markuu meesha ka soo saaray markaan uu guriga waxaan ku jiray laba labadii qol baan qol kamid iyada keenay oo andi ku yiri qolkii kadibna anigu maraan baxoon beerihiisa aan seexday marka qaar iyo marmar baa yimaada meesha markaan yimaado qolkayga kala iska seexan jiray
waxay sii ahaato waan isla joogi jirnay gabadhana markaan joogo waan wada cunteyn jirnay oo doon wada sheekaysan jirnay dee caadi ayaan iska ahayn markii dambe waxaa yimid meesha xiriir baa yimid xiriir jacayl baa meesha yimid xiriir jacayl markii meesha yimid ana safarkaygii baa lagu yiri waad baxaysaa oo waxa lagu saaraya rakaabka ninka baxaya markii hore intii horena waa lagu adkeynay jacayl xaasin waa yaa leeyahay intii horena waa lagu adkeynay waa bixin waa la diiday safar walba waan ilmeyn jiray safar walba baxaan waan ooyi jiray marka lacagna ma bixin la soo lacagna dimaan bixinaa way wasbarateen rag waa wasbaranay waxa la shaqeyn jiray marka waxa dhacday adu safarkan baad ku qorantay waa lagu yiri safarkuna dhowr cish kadib wuu ka bixi doonaa oo wali muu dhaqaaqin waxaan ku dhahay anigu xaaskayga kama tagayo waxay ku dhahay xaaskaaga wali lacag lama bixin lacagta bixiso kadib baa laga daba keenay anagoo si isku haysano aan leeyahay iska bajoogo dad doonto inay ku dirin baad doontide gabadha iskala joogo markay iyadu ka baxdo israac ayaa waxa la keenay meesha habla la keenay habla Eritrean iyo xabish isku jira la keenay hablii marka la keenay baan ku yiri iska weesho aniguna dad safarka maadaama ay ugu dareen waa iska raacaya xiriirka diideen dad joogto marka hadaan joogo dumar dambe ku dirmeena way guuladaan anaga daalacan oo raacin guuladaan oo runtii sheegay kadib safarkii markuu soo istaagay safarkana iska soo raacay safarkii markaan soo raacay waxaan imitay meesha la yiraahdo Khumus ayaan imitay may Garabuli ayaa imitay Garabuli nin camu la yiraahdo markaa doomaha ka saari jiray doomii baa halka laga saaray dhowr iyo 10 doomo laag baa la saaray marka doomaha badankoodii way roogmadeen waa lagu dhinto 3 qof baa ka badbaaday 12 doomood doontii 13aadna iyo 14aad anaga naga dambeysay taasi inay ku dhinteen kale Ilaahay baa og anigu ma hubo laakiin doontii aan anigu saarnaana marka in yar dhaqaaqnay muteer ku xumaaday dib baan loo soo celiyay sidii aan anigu ku badbaadnay asxaabtii naga horeysay la saaray oo dhan way ku baaba'een marka bishii 12aad bay ahayd sanadkii 2017 okay bishii 12aad bay ahayd waxa dhacday dadkii sidii bay ku baaba'een waayo bishu badu markay qabuubaha tahay waxay isku bedeshaa baraf dhagax bay isku bedeshaa waxay yeelataa muujado fara badan doomo ma dhaxmari karaan iska daa doome waxa la joojiyaa maraakiibta waaweyn caadiga ah xamuulka ayaa intay badu caadi noqonayso la joojiyaa waxaas iyaguna ma aabayeeleen waxay saarayeen bashar bay saarayeen bilaadan taasoo boqol oo qof ay saarayeen hal doon ay fasaxayeen la waxa kama gelin lacagtooda inay ka haystaan day dhintaan iyo day noolaadaan iyo waxa kama gelin haddii xitaa lacala aad badbaado marka cabaar socoto waxa lagu ballaminayaa dawladda Liibiya ilaa meesha dawlad kama jirto oo xoog baa lagu nooliyay wadanka Liibiya inaad garanayso ma garanayno kadib ninkan adiga ku saaraya nin walaalkii oo askarta ku jiro garaacaya wuxuu ku leeyahay waan diraa xeebta ka soo qabo lacag kale ka shubo kaba soo qaad doontii marka raacayso waxaad bixisay $1500 amba $1000 amba $2000 wixii aad ku leeshiis markaad bixiso doontii waad fuulaysaa markaad socoto ilaa 8 saacadood 9 saacadood aad daasho aad istiraado hamigaagii ku dhaboobay oo in yar baa kaaga hadhay naftaadi ma weleynayso ayuu markab ku imanaya Liibiya leeyahay uu soo qabanaya wuxuu kugu soo celinaya dib uu kugu soo celinaya Liibiya xabsi dawladeed ayuu ku keenayaa waayo garaan xabsi uu ku keenayaa dawladeed xabsiga markaad timaado xabsiga baa lagu keenayaa kadibna lacag baad kaga baxaysaa si toos inta lagu yimaado lagu ormaayo lacagta bixiyo aan xabsiga ka tag oo lagu waad keenaya oo gaaja lagu dilaya oo silac iyo jirtil iyo inay xorriyada ka qaadaan meesha adiguna kuma sii jiri karay sidoo ma kafiyo labaad waxa soo dhanaysaa xal kisaad kaga bixi lahayd baad falowgeeda qabanaysaa taasina waxay noqonaysaa inaad lacag bixiso oo aad ka baxdo aadiyo bal ka waran markii aad soo noqotay iyo sida u kulanteen Xamda wallahi markii anigu waa la soo qabtay aniga sheekada waan kaga dugooday waa la soo qabtay doontooniga ku yiri doonto waan la soo celiyay halkii markaan baar joognay 3 cisho iyo hadna dibna loo saaray doontii markaan la saaray ayir fogaatay waana la soo qabto waana la soo qabtay isla iyagii baan la soo qabto waxay yiraahdeen shidaalka idinku yaro waan baxsan markaan kala yaacnay anigu saan u soo orday waxaan dhax yimiday meesha ku leeyahay Garabuli magaaladii baan dhax yimiday magaaladii baan lug hadana kaga sii baxay mid jaadaysay wax baan loo xakuulay caasimadda dalkayga xigta caasimadii uu tilmaamay meel saawiye la yiraahdo nimaaday halkii baan hadana ka soo baxay caasimadda Trablus baan sii ku soo galay caasimadda Trablus waxa ka shaqeyn jiray hay'adaha ka shaqeyn jiray hay'adahan UNICEF waxa ka shaqeyn jiray
hay'adaha iska duwan gelinaysa iyaga laftirkoodu waa xabsi ma aha hay'ad intay ku qaabisho guri ku dejinaysa ama wax ku siinaysa ma waa xabsigiyo de waji kala la isaguna guri weyn oo hangala lagu xareynaya halkaas ku jiraysa mar baa lagu imanayaa saabun iyo wixii nadaafada iyo cuntada cuni lahayd iyo waxba la siinayaa waa lagu qaadayaa lagu leeyahay interview iyo waxba laga diyaarinayaa interview waa laga qaadayaa adoo xaaladaada la soconaya meesha lagu soo booqanayaa adoo waxay si haato meeshii baan galay meeshii hay'adda Ansaare la yiraahdo Ansaare aan ku jiray adoo ilaa dhowr bilood baan ku jiray meeshii baan ka soo baxay magaalada yar kala fahmay markaa meeshii baan ka tagay waxaan tagay Saawiya meel la yiraahdo in waxaan isbaranay jaadayso Afrikaanada jaad waa garanaysaa kulay ninkaas isbaranay wuxuu igu shaqaan ku siinayaa in mar raaco kiibaan si raaco meel dukaana ayuu guuri ka shaqeeyay ninkii lahaa uu geeyay ninka ma kula shaqeynay meeshii uu la qabsaday shaqadii uu siiyay abaar markaan la joogayna shaqo kale oo taa ka si fiican oo chip sport la yiraahdo baa ladan guriyaha hoos laga shaqeeyo ayaa iyaduna ka shaqeeyay kadibna guri bay siiyeen afar qola gurigan oo iska degan bay xamdi ka soo baxsatay makafi dhanaag ka soo baxsatay markaa ma sha Allah waxay ragsameeyeen kari waayay iyadu sameysay aad u adagtay baan islee meeshii ka soo baxsatay deer bay ka soo dhacday waxay timiday Libyaankuna markaa dumarku markaa isku dhiibto amba de kuwa caadi ah iska jiray lamba sharku isku mid maaha kuwa dhiyacabka maaha kuwa meesha ku nool dad iska isfaami kartaan ayaa jira waa la soo dhaweeyay adigu inan baa heshay aad u wanaagsan inantii waa soo dhaweysay kadibna xamda Facebook bay samaysatay Facebook bay isticmaalay Facebook bay la soo hadashay وحمد الله كي joogto halkaas aan ku sugano wallahi meeshii baa inaad iga soo kaxayso ayay baan ku soo kaxintaadana aniga igu haleeyo iska joogin guriga ka bixin meesha kulay marka kufray hay'ad ka qaad wala hay'ad isku xareysay hay'adii baa ka qaaday waxay keentay banqaas bay keentay banqaasina waxa la wareegay taliyaha ciidanka islaantiisa ayaa ku aragtay jeelka iyadoo joogto kaliya jeelkii bay ka soo kaxaysay waxay keentay gurigeedii bay igala soo hadli jirtay markaa maalin walba ila soo hadli jirtay kadib anna kan jaadayska la hadlo ku yiri walaaladii baa markaa jooga banqaasi oo hablayeen ma balay la hadal baan ku yiri oo gabadhaasi leeyo soo kaxayn lahaa falowgeeda saaxiibka way heebuuri kadib wuxuu sameeyay walaasheed buu lambarkeeda siiyay way isla hadleen way soo kaxayso gurigeeda keentay gurigeeda afar cisho la joogtay waxa jirtay waxa yar oo iqaamad leedahay warqad wada mareena shahaada saxiixiye iyo wax way yaqaanaan shahaada saxiixiyada uu sameysay waxay soo saartay bas tagaya Travelers caasimadda imanaya marka dhowr cisho bas ku soo soconaya aad bay kala fogtay meesha masaafo dheer caasimadda Travelers way timiday marka taxi baa aniga ila shaqeeyo taxi iska raaci jiray meesha waa cabsiyo dawladda kugu dhigayso lagu xidhay hal baan khaas oo oo taxi oo marka meel tagayo kala raaci jiray kuwa kale isku maana aamin jirin ba kadib taxi baa la hadlo ku yiri gabadha soo qaad taxi baa yimtay gabadhu soo qaaday guriga joogay uu keenay guriga afar qol la siiyay aniga ku yiri gurigii qol kamid ah ayaan u hagaajiyay TV wax u bayaalay dad waan u hagaajiyay ana guriga kale iska hagaajiyay wiil kale ila joogay soona saaxiib ahayno soona munir leeyahay ila joogay aniga munir qol baan iska seexan jirnay waxay si ahaatay wada shaqada iyadoo iska sii wadanayno xiriirkii baa si xiriirkii waa si adkaaday marba waxaan ku ballanay inaan markaan Yurub tagno oo hamigeeni ka mid dhalno inaan isku kursano kadib sidii isku raacno in yar abaar ma joognay atana jaceelkii waa sii siyaadayo waxaan ku yiri bana ku meersay si kala male sidii markaan yiri iyaduna igu ogolaatay waalidku halkan joogan la soo hadalnay labadii waalid baan afka isku gelinay sidii baa gabadha lagu meeriyay halkan lagu meeriyay halkan uu ka dhacay ameerka waxa la yiri sheekhu kan halkan faataxadiin mara gabadha abeed uu bixiyay maradu abeed bixiyeen halkaas marka meherkii ka dhacay halkaas sheekh halkaas ugu yeedhana kala anagu sax speakerka la dalcayadu xaajada halkan lagu dhameeyay anagu maalinta halkaas aan fadhino meerku halkan uu ka socdo halkan uu ka socday maasha labadii meeloodba sidii baa adu gabadha lagu meeriyay kadib marka cabaar joognay ilmo yar baa calool galay ilmo yar markuu calool galay baan baxnay doon baan raacnay doontii markaan raacnay
marka wabad baxdeen baa safar baan u baxnay ilaa iyo Soomaal cag hamigiina marka muu soo istaagin wali waa si wadna alla inta jeeran badda galnay tira ma laha markaan qoostay anu naftayda marna waan baqinay waxaan u baqay awlaadan waayo waxa uma garanayaan dambigooda Ilaahay maalinta aakhiradu kala xisaabtamaya hadaad ku madax adeegto biyaha ku soo labada caruur halkaas ku dhashay labaduba marka ilmuhu markuu calool galay waan baxnay doon baan raacnay doontii baan qaaday aduu 16 saacadood markaan soconay iyo doontii baa markab Liibiyaana baan soo iriiday markabka Liibiyaanka marka badanka loo istaago waa laga carraa markabna kama baxsan kartid doon yaro la soo bacana waa sidata waa bac waliba la buufiyay kadib doontii markabkii baan ka carranay oo kabtankiina waday baa istaagi waayay kadib waxa la soo degan doon yaro laasha oo orod badan oo orodka loogu tala galay dadsan oo agdhigeen bay qaadeen oo midibisa u dhaxmariyeen bacdi aan saarnay naqas ku jiray bacduna naqas markuu ka baxo degaysa bacdi markay tan jeexeen bedadku sida ma aragtay dhagax biyo lagu tuuray oo qaar baa yar roonaayo ku yarda dabaalanay laakiin inta kale waxaad moodaa dhagax saa marka biyo u turtay uu soo noqdaa dhalam way laqdaan badu dhalam way laqdaan gabadhan oo firtay iyaduna ooyisa dee oo iska la garan laayo nada dabaal baan aqaanin iska badmareena baan markii horeba kadib taanu wixii dhimashaad qadar leh waa halkeeda laakiin kama baqanayd inaan ku dhinto halka waa soo bareeray marka iyadan tijii marka in biyaha ku booday doonaysa boodi ma kuri dad badan oo saa ku booday baa jiro inta iska qabsadaan macalka dabaasha yaqaan la qabanaya inta iska qabsadaan bay hal mar degayeen tan iyadii baan doonta ku dul xajiyay wali doonto caadi uma degin laakiin dadka markay biyuhu soo galeen buuxsantay qarsoontay wali lugaha waan ku taaganahay oo biyuhu la meelahaas inoo gaaraya iyo dadku saseen oo biyay ku daateen kadib iyadoo boodaysan soo qabtay soo xajiyay waxaan ku istiijiyo in yar baar joognay markii dadkii kala faaruqeen wixii degayay wixii dad cuntay intuba ay kala degeen ay baashu nala digtay markii digtay waan ka booday iyadana xabadka halka ay qabsan ku xabadka ku qabto waan la dabaalanay markaa wala dabaash uurna way leedahay waa ilmigu hore uu ka soo daadan doona ilmahaas naxdintii wixii kadib waan la dabaalanay waa cabsanayso igu dhigtaa markii igu dhigto waan u muuqortaayo marka gunta kale sii deysaan dana soo baxa hadana waan qabtaa hadana markii dambe caadi baan la hadlan ku ilaahay waxa ma noqonaysiin aniga igu kalsoono waan ka hor dhiman karaa baan ku leeyahay ma dhimanaysiin niyada khayr shay marka kuna waa kan uu badbaadinaya intuu soo soconayo musu hadu muddo 5 daqiiqo baan la dabaalanay kuna dhabarka kuna dabaaljo kuna iyaduna markii dambe ugu qanacdo caadi deesa caadi way haysatay caadi ay haysatay iyaduna qof bilaadanka way fududeeyaan kadib markabkii waa noo soo dhawaaday markabkii way nasaareen waxay noogu soo celinayeen dib Liibi noogu soo celiyeen doontii intee ka badbaaday labadiina iyo doontii waxa ka badbaaday waxaan ku saarneen waxa ku dhimatay 22 qof ayaa ku dhimatay waxaan ahayn 29 qof aan ahayn waxaan ku soo noqonay 70 qof aniga xajiyadeedina waa badbaaday iyo aniga xajiyadeedina marka lagu daro 70 qof aan ku soo noqonay marka waxaan la keenay jeel la yiraahdo taajuran la keenay barigu qarx dhici jiray warta waa maqashay ma filaya ajaanibka fara badan ku dhinteen kadib meeshii baan la keenay meeshii markaan la keenay waana la kala qaybiyay qaybta dumarka la geeyay qaybta ragga halkii baan ku jirnay marka lagu imanaya magaca laga qoraya interview baa laga qaadaya hay'ad baan qaadaysi wax weyn ugu oran jireen moraalka ugu dhisi jireen halkii baan muddo iska joognay xilli maghrib tahay ayaa maalintii ugu naxdinta badneed baahayd igu yaabka badneed baahayd ugu naxdinta badneed baahayd maalintaas waayo gabadha ma mooday xaaskayga mooday inay dhimatayba kadib waxa dhacday salaad maghrib bay ahayd maghribkan oo tukanaya labadii ragcadood oo horeysay markaan taxiyaadkii ka soo kacay ragcadii u dambeysay aan kor u istaagay ayuu madfac ku dhacay meel agteeda oo in yar noo jirto xoog yar noo jirsay markuu ku dhacay waxa soo daatay jingadii meesha saarnaa iyo jaajuurkii wixii dhan baa soo daatay waan dhacay anigu markaa wax meesha yaalo miis iyo qof iyo waxaan qaaday ma garanay wax baan qaaday oo saas iskaga qabtay jingadii salaadii ku jira marka adoo qarax markuu dhacay jaajuurkii wixii soo daatay dadku ala beer u wada saxdeen qaarna ku dhaawacanto wax ku noqotay qaarna caadiga tool leeyahay maxaa dhacay oo soo qaaqaawsnay meeshii oo dab ka baxay oo ululeysa anagu meeshii la yaaban ayaa waxa dhacday xaaskaygu hangarkay ku jirtay ayaa hangar kale qola Afrikaan ku jireen waxa u dhaxeeya waa sidoo kale hal ilbaab oo kaliya u dhaxeeya adu waa laba qolo la kala jaray oo halkana 200 oo qof ku jiraan halkana
siddeetan dumar ku jiraan ayaa ahayd annaguna waxa ka ku xigaanay markaa madfac weyn baa lagu soo riday meeshii 200 qof ku jireen dam oo meeshu way dalooshanto labadii qof malaha dee waxba lagama arag badan bas bay noqdeen baan silmi ciid bay isku bedeleen mise madficiba waan fahmi waayay adu meeshii waxay noqotay dhiig iyo mid intaa go'an iyo gabadh intaas intay go'day jiingad ku laalantay iyo markii dambe la odhan doona soo ururiya taayadiina way soo daadatay jiingadii annagu ku jirnay way soo daadatay jaajuradii wixii oo dhan annagii baa yaabaneen boos lahayn talo wax ma nigaadeen oo waxba nagu dhacona maraan qabnaa hadda ilbaabkan laga furay markaa ilbaabkan laga furay soo baxay baan arkay xaaskaygu meesha ku jirtay oo eberaba oo jaajur mooyaan wax kale la arkay oo dhulka la simantay subxaan baan arkay naxtin de weynii waxaan isku daray qaylo aniga cararay balmiidkeedan soo arag intaan dalka ka bixin meesha waa la yaaciyo laga sii baxsanay halkii dadku halka ka yaacayeen baan silmiidkeeda soo hubi horta dawin nooshay horta anigu marnaba isma lahayn waan cararo meeshii baan galo iyaduna way sastoon oo u yeeray ilaa hal dibeed meeshuna mugdi baa ahayd guduhu mugdi baa ahayd leesma arkayno habeen baa ahayd xamdahay baan yiraahdaa shib ma ila hadlaysaa oo sasbay way shoogtay caadi bay ahayd waxa ma soo gaadhin wax yar xataa ma arkayo waa habeen oo meesha dib baa yaacay dumar baa ma ark way arkaysaa laakiin ma hadli karto ilama hadlayso way arkaysaa inan kaloo iyada la socotay saaxiib ahaayna kalida intuu dhagax kaga dhacay iyaduna barlaatahay oo jiifto way soo xusaneen sidaadaan soo galay waxaan arkay saaxiibadeedo inay nafku jirto badaan la mooday markaas soo qabto soo kala dhacaysa bismillah iyadii markaan arkay tan kalena waan ka qosto waxaan silay way baxdayba hadana way dul taagantay xabdaa meeshii baan dhax carraa walaa qosan horta meedkeeda arag meeshii baan dhax carraa markii dambe waxaan arkay iyadoo dul taaganba waxa uu dhacay shib waxa uu dhacay shib ku cabdi kaafi leeyahay markay intan isla sheekaystaan tan yar saaxiibada Allah u naxariistay may dhiman wax noqotay way bogsatay markii dambe way caafimaadeen midhar la siiyay gabadhiiba uu ku dulooyay markaa soonaad buu jeclaayo uu ku dulooyay meeshana wada dhiig baa soo yaalo waa dhimanaysaa wadan naxdin baad dhimanaysaa soo baxaysaaba adigu gabadhan xanuunsanaysaa horta soo qaaday dhabarkiisa baan ku dhabarkan ku soo qaaday waan soo saaro banaanka soo saaro isagaan ku yiraahdo la googo kaxe tanna meeshii kamay dhaqaaqay way taagantay wali meeshii baan ugu soo noqdo waan soo xambaaray waan soo xambaaray anoo soo socda waxaan ku istaagay miid intaas una go'anto dhabarka sarana diirku ka kacay ayaan ku istaagay wasilbado waan ku dul dhacay saad u dhacday waan ku dul dhaco iyaduna way dhacday ma aragtaa waxay ku dul dhacday dhiig iyo qoyaan bay ku dul dhacday saasay u eegtayna waxay aragtay madax qofood intaas go'antay ay aragtay naxdin kale ka sii qaaday sas kale meeshii baan ka soo qaado meel yar oo meesha ka yar fog baan geeyo quraan wixii aan garay quraan aan garanayo dhan baan ku akhriyay kadib markaan quraankii ku akhriyay biyaan quraan ugu akhriyay oo taxliil inuu waraabiyay inuu meeray kadib in yar markay joogtay caadi way noqotay caadi markay ila hadashay alxamdulillah askari meeshii baan ka soo kaxeeyay meel yar oo doctor inoo dhaweyd baan geeyay meeshii markaan geeyay markaas saxmad bay ahayd waan ila qaadayaa waan loogu yiri dadkii baa meeshii la isku soo ururiyay isla meeshii waan loogu soo celiyo leeyahay banaanada seexda gudaha ku xaroonina isla meeshii la qarxiyay baan banaanada iska hornay aduu markaan hornay ilaa 7 cisho ahayd baa filaya 7 cisho markaan hornay ahayd noo timiday waxayna qaaday waxayna geeyeen GDF meel la yiraahdo dariiqsiga ku taala ay ugu tala galeen dadka qarax ku dhacay iyo muddo qaxoontiga ay natiijiyeen qoyskii walba waxay siiyeen marka dad badan oo qoys way jireen oo Liibi isku gursay sidoo kala waan badneen marka qoyskii waxa la siiyaa qol baa la isku siiyaa dhalinyarada kale inta single kana waxa la siiyaa qol dhowr sariirood baa u yaalo ay seexdaan marka halkii baan muddo ku jirnay dad badan kale waa laga qaaday halka hay'adu ay qaaday hay'adu marka ma tuu keenaysa wadanka waa hay'adu inay siyaarto si qaadaysaa waxay geenaysaa ilaa iyo qaar Talyaaniga qaar Rwanda ka sii qaadan ilaa Canada aduu waqtiga nasiib halku dacaa nasiibkaagu ku geeyo waxaan isla interviewgii waxba khaldamado waxba ilaa hadli waayeen in kastoon UN-tana ku cusbaayo marka ay ugu horeyso qortay aan wasaare ka soo baxay markii sidii baan xaaskayga isku guursanay markii dambe ilmihii yaraay markii hore uurkay qaadeen waa kii daxdintii badda iyo dagaalkii qarxii wixii kaga soo daatay ilmo labaad baa calool galay alxamdulillah meeshii baan ka soo baxsanay magaalada dhexdeeda ugu dhashay hay'adda marka dadka qaabisha hay'adaas baa dhakhtarku geynaysa haddaad sharci haysan halkaas ku baqtiye kartaa cid ka dhalinaysa cid ka soo wareegaysa ma jirto
waddanka Liibiya meeshaan ka fajacaan ka yaa maanta inaan halka ku foolanaysa dii la arko cid ma dhaafayso haddii u yartay hadda dhakhtar geyn weyd intaad guriga ku soo xareysad ka dhalinaysa laakiin halka cid saa ku soo agaysa haddaad dhimanayso ma jirto hadaan sharci wada biilismo waraabinayo sidii baa aan ilmuhu igu dhashay ilmuhu markuu ii dhashay macalliyadoo xaamila ama bambada fulnay waana la soo qabtay dirqosi kan la keenay lacag baan la baxnay haddana iyadoo ilmihii dhashay ilmihii mujuqaan la fulay waana la soo qabtay walaa xaga 9 jeer markaan labadaba la gashay labadaba haddana waa la galay labada caruur macal waa la galay iyana sidii mid niyada sitay waana soo qabtay haddana waana la soo qabtay UNT walaa xaga way jooqi weeyday si markaan arkay inay halis ku jiraan caruurtan yaryar ayaa habeen aanu sidaas jiifan xisaabtamay waxaan saray hawada maanta dad naftaada isku wacan oo soo taari walka soo mar awlaadaas waxa ma garanayaan wiilay dhaxdiina ka keenay ka dhaliyay inay meesha waxa ma garanayaan iskaga noqoto tirto oo wadanka iskaga noqdaan ayaan ku fikiro niyada soo gashaday waan middo qorshii baan soo bandhigay waxay ku tiri waayo dhimalo waan iska noqonayaa dhimale marka iyada soo cilniyay aniguna waa sii soconay waa taan isku afaanay waayay tiri safar ku horeeya soo saaray IOM soo qaaday waan soo saaray halkan bay timid hay'adda taariibiyaashu way soo qaadeen halkan bay ka soo degtay halkan markay in yar joogtay malaa bil baan ka dambeeyay filayaa iyo 2 bilood waxay ahayd ma xasuusto adoo in badan baan ka dambeeyay adoo xoog yar baan ka dambeeyay adna markii dambe soo dhigtay markii dambe anu isma soo dhiibay horta meesha jacaylno jira caruurna waa la qabsaday oo guriga la joogi jireen adoo cilaan dareemay xiiso iyo waa ciriir u yahay waayano asxaabtii waan ka dhaxbaxo macal dadkan la sheekaysan si qof isku shaqo isku buuqay oo kala noqday iyada marka la soo hadlayna sidoo kale oo iyaduna waa way dareemaysaa cilada waxay ugu tiri waan imanaya oo Liibiya ku soo noqonaya adna waxa ku soo noqonaya Liibiya waan ku soo noqonaya aqli gal ma aha doon time ka baxaysan raacaya intaan Talyaaniga tagay ku soo dacoonayso maybe tiri anu waan soo noqonaya dad baxaysi hadii kalaba waan soo noqonayaa marka adan ku soo noqonaya waan ku imanay meebaan ku yiraahdo ana ku imanay iska joog daba kaale sidaan isku soo raacno aniga imida ka soo degay ma sha Allah iska imid aniguna alxamdulillah halkaasay ugu soo dhaweeyeen hay'adda barakacayaasha iyo hay'adda ayuuntuba halkaas madaarka si wanaagsan ugu soo dhaweeyeen Allah sharfo xoog yar wax ku qabsanana wayna siiyeen oo inta imika ka joogno aan ku shaqeysano iyagana aad baan u salaamayaa insha Allah ummadda dhalinyaradana waxa leeyahay dalkeena jooga iyo nimca taala ay xuriyad taala ninka rag horta xuriyad la'aan iyo dumar badda xuriyad la'aan cid noolaan karta adduunka ma jirto maalinta dalkaaga ka baxdid baa xuriyad la'aan kugu dhacaysa sharaftar kugu dhacaysa gaajo kugu bilaamaysa rafad kugu bilaamaya waalidka dhibaatoonaya waxa leeyahay hadan ka shaqeyso wadanka loo orday Yurubta leeyahay amba Mareykan iyo Kanada meeshii doonto ahaato waxa ku geenaya waa qarashka wad ka shaqeysan kartaa taada si hagar la'aan hadaad u shaqeysato maanta hadii dhoof waad dhoofi kartaa maantada laftirkeyga hadaad shaqeysato waxa lacag ku heli karto aad dhoofi karto waxa naftaada halis ugu gelinaysa waxa waalidkaaga ugu dhibaysa laakiin hadii taariib dambe ma geli karaysid ma taariib dambe oo muhiimadda kaliya taan ugu maanta aanu ogolaaday barnaamijkaagan aanu ogolaaday muhiimadda kaliya in dadka u sheego in ay dhalinyarada taariibin ay ku imaansadaan dalka taladaad siinaysa weeyaan waa taladaad siinay aad iyo aad maxamed mahadsantahay sida qiimaha badan ee nooga warantay waayihii dhibaatada soo martay waayahaad isku guursateen adiga iyo xaaskaaga maanta alxamdulillah waxa taagantiin laba ciyaala inaad haysataan adduunkuna waxa weeyaan qof walbaaba inuu wax ka tago maanta ubad baad haysataa waa shaqaysataa dhalinyar badan ama dad badan oo maanta ku daawanaya waxay arkayaan barnaamijkaasi mid qiimo weyn u ah dhalinyarta badan ee sii socota kuwa maqanna way dareemayaan halka maray inay dhibaatadaasi jirto aad baad mahadsantahay waxaan rajaynayaa inaan ku soo dhaweyn doono Xamda xoogaa maadaama intii badneed aad wadna siisay xogta Xamda yaro kamid aan bal ka qaadan doona insha Allah Xamda Maxamed Maxamuud adna ku soo dhaweynaya maadaama intii badneed oo ka waramay xaajigaaga Maxamed waayihii aad ku kulanteen rafaadkii dhibaatada loo maray wixii oo dhan soo ka sheekeeyay bal waxaad warbixin iga siisaa miyaad islahayd marnaba halka intaad martaad ku guursan doontaa oo maanta awlaad halka ku soo dhali doontaa si bal ka waran jacaylkii halka idin ka dhashay iyo waayihii halka aad ku kulanteen iyo sida ay kugu dhalatay inaad guursan kartaan Maxamed horta marka hore wax walba waa qadar leh ilaahayna wuxuu qoray dhinacna ku seegi maayaan
horta noloshayda markaan tagay wallaahi niyaddeeda maan gelin amba niyadda kumaan haynin inaan islay wad guursan doonto halkaas aad ku guursanaysaa laakiin wax walba qoraal ay noqdeen calaf baa meesha yimiday markuu maxamedna abaalo badan ii galay iyo badbaadintu ilaahay ka sokoosaa iiga badbaadiyey nimankii magafaha ayaan kadib markii waan ka dambeeyay xoogaa baan ka dambeeyay sidoo maxamed inii sheegay اللهم صل على محمد markaan meeshii ka soo baxay ayaan isaga ugu yimiday caasimada soo jooga Trablus kadib waxa dhacday ayaan xiriirkayga si socday sida maxamed inii sheegay halkaas aanu family-ga la soo hadalnay isku guursanay guurkaygu ku dhacay alxamdulillah rabbil caalamiin dee ismaan lahayn waad guursan doontaa amba halkaas rafaadka iyo dhibaatada aad awlaad ku dhali doontaa amba maxaa la yiraahdaa laakiin jacaylkii waa keenis waa markii dambe jacaylkii way mid meeshada hadiyad bal waxaad ka warantaa idigoo awlaad haystaad baxdeen oo tiraadeen haddana waa mar anigoo uur leh ayaan bada galay waana la soo celiyay mar kalena anigoo maxaa la yiraahdaa ilmo yarna haysta midna caloosha aan ku sido ayaan bada galay mar saddexaadna waxaan horta intaan bada galay taramay lahayn koobitaan meel aan ku soo koobi karayo may ahayn aniga wallahi kula hadlay bada galaba intaan ilaaway baa ka badan intaan xasuusanahay marka 100 jeer baan bada galan ku noqonay marna anigoo ka yar labada inamood ka yar anigoo maxaa la yiraahdaa umushiisa oo hal bir jiro oo ka kalena dhowr bilood meelaha adu sanad meelaha u jiro ayaan bada galay wadada socotaan inta wala soconay afartaayaduba aabihi baa waday corona aabihi baa dhibta ku hayay ka yarna ana hayay oo naas ku shaqeeyay oo saadarteed bada ku galay ka waran markii adoo soo noqotay ee ku heshiiseen ee markii dambe astiraad noqotid mar dhibaatadii baad islaadaad ku noqotid may wallahi ismaan lahayn aad dhibaatadii ku noqotid laakiin waxa dantii waxay sababtay mar hadii aanu badiina dhaafi kar weynay dee hay'adina waqti ay nagu qaadatay inaan sugno intayna qaadisay hay'adaynu si aar waxay noqotay inaan carruurtii reedee naftoodii aan badbaadino oo kadib anigu aan la soo noqdo ayay noqotay kadib saadarteed ban ciyaalka la soo noqday taladana saasan ku wala qaadan oo maxamed soo dajiyay laakiin wuxuu sheegay inaad markii dambe tiri waan soo noqonaya aniga waxaan ku urwaan soo noqonaya de magaaladii baa la qabsan waayay mid kale magaalada waxa dhibaatada jirtaan horta anigu shakhsi ahaantayda markii hore aan uga tagay dhalinyar baan horta waxbarasho waan bartay ahayd inuu filan horta waan bartay laakiin heer jaamacadeed baanan gelin kadib waxaan u tahriibay ahayd xaafadayda family-gayga hooyaday ay dhashay carruurta walaalahanay ana ugu weynaa orod baan ahaa kadib si aan reerkayga waxaan ugu taro ayaan u tahriibay ahayd anigu ugu horeyntii marka magaaladana horta sideen aad ogtiin magaaladana Soomaaliland shaqo haday noqoto aad tiraad ka shaqeysana family baa horta shaqo badanka loo shaqo geliya qofkan shaqadoonka waxa la oranayaa wax soo baratay heerkeebad maraysaa qolama tahay waxaas horta qabiilkaas iyo waxa la isweydiinayna aad ma qurux badna kadibna markaan arkay inaan hargeysa shaqana ka helaynin masaxaadina wallahi igu yar adkaatay aan soo masaxayay meelaha guryaha aan ka soo masaxi lahaa hawlina igu bateen hooyana carruurtaada ku badneed dan yarna aan iska ahayn xaga xaafada hooyaday ayaa dhalinyarna waan gurigana waan ugu weynaayo kadib bay tahriibtii ugu dhalatay kadib ayaan tahriibay horta noloshii aan ka tahriibay haddana nimankaan carruurta haystaan ku soo noqday xaaladan aan ku jirno horta way taagan tahay magaaladii shaqo la'aan baa ka jirta dhalinyartuna badanka horta waxay u tahriibaysaa waa shaqo la'aanta haddii ay dowladeena dee maanta ay shaqo abuur dhalinyarta u sameeyaan farqabsi u sameeyaan dhalinyartii waxbaratay waxbarashada waxaan ku ri si wanaagsan u soo bartay jaamacadaha heerka qalinjibi waxa jirta wallahi dhalinyar badan oo jaamacadaha ka qalinjibiyay baa nala socday oo tahriibay sababta ay dhalinyartu way iswareysanaysaa markay meel iskugu yimaadaan in bataraagiina xaaladahooda iyo safaalahooda iska wareysanayaan maxaad soo tahriibtay sababtaad u timid maxay ahayd marka inta u badneed waxay ahayd dhalinyarta horta aan iswareysanaan isla kulanay dhalinyar ka cabanaysa xagga shaqada ayay ahayd marka shaqada sababtay hadda markii aad soo noqoteen
hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha iyo IOM hay'adan taariibayaasha soo celisa wax dhaqaale ah oo idin siiyeen oo farqabsiina ma jirtay ها way jirtay alxamdulilah rabbil caalamiin horta dhaqaale iska fiican wayna siiyeen laba kun bayna siiyeen adiga laba kun ها marka alxamdulilah rabbil caalamiin labadii kun dee waxaan dukaan ku furanay markaan imanayna dee reer kaba lacaga badan baan ka qabno magafihu naga qaaday oo dee qof aan islahayn uu inta kaawleynaya amba uu in garab galaya ma yahayn hooyadeena dee waxaan isleeyay aan ku ogaayo lacag oo fiican iguma idaamin aan isleeyay kugu dhaantay ma jirin waxa dhacday dee horta markaa timiday guribaad u baahan tahay aad degtid awlaad la degtid waxaad gurigii hoos dhigatay oo gashid baad u baahan tahay labadii kun horta waad iska garanaysaa 2 kun maanta qiimaheedu deentay taagan tahay haddana alxamdulilah walaa dukaan yarna waan ka furay 4 kun dukaan yarna waan ka furanay gurigayana dee alaabtii oo wixii aan kasoo dhigdhiganan karayna waan kasoo dhiganay wixii la biishan kara waa la biishaday alxamdulilah horta kara weeyaan kan imika aan deganahay xitaa kiruu nagu yahay waxa dhacday horta hay'aduhu aad bay horta noo qacan qabteen noona caawiyeen alxamdulilah rabbil caalamiin siiba hay'adda IOM 6 bilood ba waxay igu caawiyeen karada guriga 6 bilood karadii guriga iyaga iga bixiyay waxay iga bixiyeen Allahumma salli ala Muhammad caanaha iyo raashinka 6 bilood hay'adda ciyaalka iyaga iga qaabilsanaa sidoo kale hay'adda barakacyaasha waxay nagu caawin karisay oo nagu caawisay markuu dee raashin imaado kale wana la soo hadlaa wana la soo wargeliyaa hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha weeyaan wana la soo hadlaa kaalana lagu yiraahdo waan tagnaa wixii la soo siin karo wana la soo siiyaa alxamdulilah rabbil caalamiin horeysay dhakhtarka qaybta dhakhtarka waa noo qaabilsanaayeen dee imika maalmihii dambe dee imika inta waqtigan lagu jiro horta waxna lagu caawimay jirin iska feeya mar haddii markii hore in la gacan qabto in la caawiyay imikana dadalkiina nabada joogtaan baana lagu jawaabay dee wixii aad isku kafeyn karaysaan isku kafeeya aad iyo aad mahadsantahay fariinta aad diraysaa maxay tahay xamdaad kaga faa'iideysanaysaa barnaamijka horta fariinta aan kaga faa'iideysanayo barnaamijka waxay tahay horta dee taariibta horta wax lagu tashto qof soo arka un baa garan karaa horta aniga intii dhalinyarta soo aragtay rafaadka iyo inta imika ku jirta ayun baa garan kartaa inta ku jirtana aad baan horta ugu dacaynaya meel kastay joogaan waxaan leeyahay ilaahay dee magafa hadday noqoto iyo hadday meel kale noqotoba ilaahay naga badbaadiyo ilaahayna nabaqad hay nagaga saaro si fududna kuwii kaga baxa ilaahay naga dhigo alxamdulilah rabbil caalamiin oo nii soo dacaynaya markasta meel kastaan joogo iyo meel kastaa joogtaanba dhalinyarta horta joogta wadankooga taladaan siin lahaa horta aniga xamdi ahaan horta tahriibtu wax lagu tashto amba wax lagu fikiro ma aha way jirtaa waqti marka aan tahriibayeen doonay inaan tahriibo inay dhalinyartii ka baxday Liibiya ee Yurub joogtay la soo hadasho xamday walaal iska joog rafaad weeyaan meeshii waxaan ugu jawaabay markaad Yurub gasheen lacagtii aad ka dharigteen Yurub ayaa leedihiin iska joog waa dadka isla tahriibteen may dadkan isla tahriibna ma waa kuwii iga sii horeeyay ee Yurub galay weeyaan laakiin markii dambe rafaadkooda laakiin markaan rafaadkii arkay markiiba nu qoran ila Allah heblaaye iyo hebeliyo wallahi waxay sheegay run buu ahaa marka in kastoo isleeyahay dhalinyar rumaysanaysa jirto in qaadanina sideedii kala doonta shakhsi baan hayay bili aadamku isku wala mid maaha dad markay arkaan wacdi gelinta ay ku istaagayaan way jiraan horta naxdinta waalidkana wax loo dhigaa ma jirto waxa ugu xunna waa naxdinta waalidka weeyaan anigu waxaan idhiba waxaan u dhaafi waayay Liibiya uga bixi waayay waa naxdintii malaha waalidku iga naxay markii horeysay weeyaan baaban siriba waayo adigiyo waalidka ku ogeyn wadankii dhexdiisa uu ka raadinayo haddana Liibiya kala soo heshay tira hooyo Liibiya jooga ma gafan ku jira amba Liibiya jooga ma gafan ku jira naxdinta soo gaari kartaa maxay tahay ma malayn kartaa waalidka qaar uma qof horta anigu shakhsi ahaantayda qof waalidkii u sii sheegaya inuu tahriibayo horta kuwa Yurub joogo kuwa imika Liibiya ku jira kuwa halkan joogo ku tashanaya inay baxaanba ma jirto laakiin waxaan rajaynayaa kuwa ku tashanaya inay baxaan oran lahaana dalkiina waxay nidhaamo ma jirto haddaad ku gaajoonaysid maanta ku baktiyaysid dadka kugu xigad ku qaraacsan oranaysaa orday waa gaajoonay soo kari maanta bariya saada bisa kun bood ku noqonaysaa waad ka soo karsanaysaa dad maanta waxba gacanta ku hayn oo family-giiba u tagaysaa
laakiin liibi meel aad u ceelsanaysa meel aad u tagaysaa ma jirto marka waxaan kula talin lahaa inay wadankooga aaminaan iskuna dayin inay tahriibaan ay amba niyadooda gariya amba ay ku dhalato amba ay ku fikiraan inay baxaan ay wadankooga ka baxaan tahriibtuna waa wax xun aad baad u wanaagsan daawadayaal intaasina waxaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka arrimaha qoyska iyo haweenka oo ka daawanayseen telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland barnaamijka mawduuciisa ayaa waxa uu ahaa socdaalkii tahriibka iyo dhibaatadii badnayd iyo waayihii ay soo mareen qoys ku midoobay nolosha iyaga oo tahriib ku jira waxa daawanayseen oo waraysiga aan ka qaaday maxamed iyo waliba xamda oo ah qoys isqaba iskuna guursaday wadanka Liibiya iyagoo tahriib ku jira iskuna bartaa tahriibta siday uga warameen maanta ay ka haystaan laba awlaad alla ku arsaaqay oo haystaan barnaamijkan waxa ii fududeeyay oon u mahadnaqayaa marka hore hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Soomaaliland waxaana iska kaashada wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska waxaan u mahadnaqayaa inta Ilaahay ka sokaysa oo dhinaca kamarada iga caawiyay Cabdicasiis Cali Nuur iyo Cabdi Safwaan oo dhinaca farsamada xitaa ku sii lamaan yahay isla Cabdi Safwaan soo diyaarintii soo jeedintii anigoo habnay Ibrahim Dhakhtar waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh البولة هرو مركين